halkan hadda aan joogno waa Tukarraq bay 7 kiiloomitir ka horeysaa waa halkii difaaca ciidanku kaga jiray shalay bishii 15 tahayd subaxnimadii 7 meelaha ayaa aaga hawdka ee maalintii hore laga soo weeraray iyo aaga jiida hore oo wajiga hore ah ayaa weerarkii ugu cuslaa ee ay diyaarinayeen waayadan oo dhanba ayaa laga soo qaaday marka runta laga hadlo dagaalkaasi dagaal adag buu ahaa muddo 4 saacadood iyo badhna uu socday ciidanku markaa waxay gaadheen halka ay joogaan bay 12 kiiloomitir hore u dhaafeen way ku dhawaalan lahaayeen falleedhiyaale godqaboona way qabsadeenba oo imika inoo jirtay 8 kiiloomitir way qabsadeen oo tuulo ah oo ahaydna tuuladii difaaca u ahayd ciidamada Puntland waa la isla dhaafay waxa lagu qabtay weerarka hore ayaa 7 technical iyo halka taangi oo halka aad ku arki doontaan ayaa lagu qabtay weerarka galliga hore galliga dambe weerar isna culus baa yaa dhacay oo kowdii wixii ka dambeeyay oo la isku raagayada kaasina 4 barkii u dhamaaday baabuur badan baan ku gubnay sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland oo halkaasi ku sugnaa isagoona ciidamada ku amaanay guulaha ay gaadheen sheegeen inuu kalsooni weyn ku qabo waxa halka saaka ku cad nabadaan ku baaqaynay muddada dheer aanu gaaban iyo dheerba ku sheegnay in la qaadan waayo natiijadii caawaqamadii ay wixii ka dhasheen hadeeyo aanu halka ku aragno saaka waxaan taliska iyo saraakiisha iyo ciidamada dhammaan uga hambalyeynaya guusha ay gaadheen wixii intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacmatayna waxaan ilaahay uga baryaynaa dambi dhaaf iyo inuu ilaahay abaalkooda mariyo baaxad leh meel kastoo jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo fargeliyana 10 iyo dharbaaxa fiican darasada fiican ka bixin kara way waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba uga hambalyeynaya dhammaan ciidanka iyo saraakiishooda iyo taliskooda guud mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambal iyo guusha gaadheen ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Farax ayaa isna halkaasi ka hadlay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horena ugu horeen oo rag badan oo u soo horeeyay meesha joogaan oo taliski Maxamed Siyaar raggii ka xoreeyay badankooda rag badan baa meesha ka muuqda iyo raggii ay tababareen ciidamada qaranka Soomaaliland waxa lagu yaqaan meesha ay tagaan inay dadka ka mid noqdaan oo taakuleeyaan oo siyaasadda ka horeeyaan oo ciidanku uusan wax dhibaato ah dadka ay la u tagaan waxay tagaan mooyee ay waxba yeelin aad iyo aad bay taana u ammaanayeen tiiba hadda la deyn waayo la soo shaqaynaya maalintii dhaweeyda UN-ku timina waa u sheegnay inaan ciidanka Soomaaliland meesha uu degan yahay joogaya ilaa wada hadal la gelayo Soomaaliland wada hadal ay diyaar u tahay waa laga badbadiyo waxa la siray intay ku maqan yihiin dabaaldega ka gaarsiiya waxa weeye waxaan salaam idinka siinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu na soo faray in la idinku ogyahay shacabka Soomaaliland meel uu joogana waxaan ku dhiirin karayaa waxa weeye guryaha aad ku hurtaan waa ciidanka Soomaaliland waxa la wixii taakulayna waa in taakulayn la isla soo taagaa haddaan nahay golaha wakiilada oo aan gudoomiye ka ahayna wixii taakula waxba kala hadhimayna ciidanka Soomaaliland Mawlid Ali Star TV Laasanood